وبركاته لما داود شقي ما هي قايا على مبالغ الدنيا كجوكتان وحالنا هاي مركز الكسود هذا بهذا وناقستر ميديا مقالة لندن وحعاو برنامج وناقستر ميديا استوديو مرتي نوغا انجينير عبد الله أحمد مالين براسر معهد مالتي تريننج سنتر مقالة لندن مع عبد الله كسود برنامجك وحنا واربعين كوب النقصيسا وحبرشة يسكول كان يوقتي أساس كيسة يوحياس إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ورالكي إنجنير نور الدين بود أدي مع سنتاي سودوينتا منطقة سلانتا قيمة له. سيدوك الواحد علني ورالكي كابر مانكا ناشونال تي في استمرك شبا فرد صدوين إيتاي مركز كلا سوا موضوع وناك ستار ميديا. سكول كمالتي تريننج سنتر ومعهد مدلات سنين كبدا كنيسة مقالة لندن وأرض بدن أو صومالي أو حبري خاصة علمية IT معناها وأرض الصومالي كيف فائدة si mataqaana in noloshooda wax uga bedelaan fursada shaqo ay ugu helaan taas ayaa goolkiisa weyn ahaa in ardayda Soomaaliya ay ku dhaqan dalka Ingiriiska inay ka faa'iideystaan macadkan ay bartaan mataqaana farsamada IT-ga ah macnaha ay maanta shaqooyinka lagu heli karaayo sida degdegta waliba kaas ay ardayda ka faa'iideynaa arday badan aad timaada macadka wax ka faa'iideysato dabcan shaqo ku helaan okay macallin marka su'aalo ku qabanaya ka weydiin doonaa qaabka dhalinyarada waddankan joogaan waxbarashadooda iyo qaabka ay wax bartaan waxaana sida dhalinyarada kale dalka Ingiriiska waan ognahay dhalinyaro badan oo inta wax ku bartay qaar sida sameeyay qaar waxa jiro mataqaana maaragtay levelka maaragtay diyaariyaan markii sanadaha ugu dambeeyay ee dugsigooda sare waxaasoo waxarnayna wax yar naga siisa tafaasiil waxa jira arday GCSE-da iyo imtixaanaadka iyo waxyaabaha soo dhan mataqaana maaragtay sameeyaan qaarkood waxa laga yaabaa inay GCSE points fiican yimaadaan ee hore u gudbaan qaar inay ku dhacaan marka annagoo barnaamijkeena basic ka soo bilaabeen marka dhalinyaradaas waxa uu muhiimsan markii qofku waxbarashadiisa dugsiga sare soo dhameeyo oo jaamacaddii aadin dad badan oo aan ognahay dhalinyarada magaaladan joogaan inay waxbarashadoodii aan heer fiican ka gaarin qaarkoodna ay ka gaareen marka dhalinyarada waxbarashada GCSE-da iyo A levelka marka meesha markay marayaan ayaga xaaladooda warbixin naga sii kooban insha Allah aad iyo aad ma santaa walaalkii Nuruddin arday badan oo Soomaaliya waddanka ku barato macnaha GCSE-gada macnaha waa shahaadada dugsiga sare tan A level keena macnaha 2 sano kale way ku xigto macnaha dugsiga sare ardayga ku jaamacad aadayo oo barto marka koorsooyinka aan dugsigan ku bixino waa koorsooyin ka madax bannaan kuwa akademiga marka laga hadlayo GCSE-ga A level-kii waa kuwa macnaha caadi ahaanba arday 12 sano 13 sano waddanka ay bartaan si jaamacada u gudbaan laakiin iskuulka waxa lagu bartaa macnaha maadooyinka professionalka ah u sahli karay ardayga inuu dabcan uu shaqo u helo yes arday badan macnaha imtixaanada GCSE-ga iyo A level-ka inta macnaha si fiican ugu gudbo qaarna macnaha u suurto galowda laakiin labadaba macnaha way u sameeyeen inay bartaan maadooyinka professionalka waxa ay yimaadeen waalidiin aad u badan mararka qaarkood macnaha dhahayo ardayga macnaha GCSE-ga dhibci laga fiilnaa ma u keenin qaarkood waxay leeyahay A level-ka ma uusan keenin marka waxa u baahannahay mataqaan inay teknolojiyada ka faa'iideystaan dabcan shaqo galaan taa macnaheeda ma ahan ardayga markii macnaha uu GCSE-ga ama A level-ka wax fiican ku keeno way clear inay fursad u tahay inuu waxaan u barto sumee ku gaaro balse kuwa mataqaana GCSE-ga si fiican ugu baaseen ayaa jira oo rabaan inay ka faa'iideystaan ay meel ku gaaraan waayo saa ula socto waddanka ardayga marka uu jaamacadda aadayo lacago badan oo macnaha waxaa jiraysa oo deyn inuu qaato oo suu jaamacadaha uu tago wax ku barto marka carruur badan oo carruurteena ka mid ah waxa ay haddii macnaha ay saysa dhaqaalaha jaamacadda ay ku bixinayaan marka waxay ka doorbidaan in maadadan oo kale isbeen oo shaqana ay ku heli karaan waxna ay ku bartaan hadhowta ama jaamacadihii dib ha isaga bixiyaan ama mataqaana maxaan ku radaa oo IT-ga u noqoto mustaqbal dabcan ay ku shaqeysan karaan okay waa fahmay markii taas laga soo gudbo adiga macallinkii macadka sare waxa tahay mataqaana multi training center ee magaalada London marka koorsooyinka aad bixiso oo ardaydaas ama wixii ama ku soo baasaan ama laga yaabo waxbarashadoodii heerkii sare markay gaaraan ama qaarkood mataqaana jaamacadaha isku aad ama qaar jaamacadaha aadi waayaan oo jaaniskaasi u heli waayaan waxbarashadoodii meel fiican ay gaari waayaan marka koorsooyinka ka macallin ahaan ka macahadan aad bixisaan oo dhalinyarada taasisaan maxaa kamid ah runtii taa ayada usoo gudi doono haddana inta koorsooyinka iskuulka aha laakiin mid rabaa inaa waalidiinta iyo saaxiibada iyo xasuusiyo mar kale qof kasta waan jecel inuu jaamacad ka baxo macnaha oo Soomaali ah cunug kasta waddanka ku dhashay ay jecel wax barto inuu ka baxo macnaha marna ma dhahayo qofka jaamacadaha ka tago yes badanaa jirto oo jecel markay maadooyinka dhigtaan inay shaqeystaan ay kaga badan tahay maadaan inay mustaqbal ka samaystaan mustaqbalka dambe macnaha ama IT degree ay qaataan oo jaamacad ay kaga baxaan ama maadooyin kale ay jecel ka baxaan marka tala ahaan aniga markasta waxaan jeclaan lahaa carruurteena
inay hadday jecel yihiin qasab maahan qaar badan laga yaabaa inaysan jeclaan jaamacadda tagaan laakiin markasta aniga macnaha marna ma dhahayo jaamacaddii aan dhiganin haddii qofku uu jaamacad dhiganayo uu jeclan dhorto uu ka bixi karaayo aad bay u fiican tahay jaamacadda uu ka baxo marka iskuulkan maadooyin badan oo bixiya oo IT-ga ah macnaha oo kala duwan oo professionalka hadduu ahaan lahaa networkingka hadduu ahaan lahaa cloud computingka hadduu ahaa securityga kulley intaa keliya kuma saabsano haddana markaan wax barayno ardayda macnaha waxa xoogga aan saarnaa waxa ay tahay marka maadooyinka iskuulka uu baranayo siduu ardayga shaqo ku heli karaa macno weyn ma samaynayso in ardayga buug oo ardayga amazon uu ka iibsan karo inuu soo gato uu akhristo ama cajal oo macnaha youtube ka daawan karo inuu galaas u yimaado muhiim ma aha laakiin ahmiyadda weyn galaaska maxay tahay ardaygu imaanaya in canuga markuu halkan yimaado looga faa'iideeyo in aqoonta uu leeyahay waxaan aaminsanahay carruurtan halka ku dhalatay in IT-ga wala nool yihiin markay dhasheen laptop u yaalay computer u yaalay laakiin inta badan waxaa laga yaabaa inaysan ogeyn inay aqoonti already leeyihiin halka markay yimaadaan waxa aan xoogga saarnaa waxa ay tahay marka laga soo tago koorsooyinkan faraha badan bixino CompTIA pluska N pluska CCNA-da CCNB-da kaleeta Microsoft koorsooyinkooda kale virtualizationka SCCM-ka cloud computingka way badan yad again waxaa sii jiraan training waxaan bixinaynaa oo la socda koorsooyinkeena bilowga ah koorsooyin professional ardayga asagoo dhiganaya koorsooyinkeena ugu horeeya ee fundamentalka ayuu haddana wuxuu qaadanaya skills macnaha tusaale ahaan first line ku noqon karaa soo ku noqon karaa technical support engineer professional courseska oo aan bixinayno waxaa ka sii dheer mataqaanaa technical skills oo marketka looga baahan yahay inuu ardayga u barto marka macallin su-aalaha isweydiinta mudan oo badanaa dadka dhalinyarada marka ay dalkan wax bartaan ay ugu badan dhibaatada kala kulmaan waa ogtahay qofka markuu wax barto dhan dhalinyara waaye qofka haddii una waxaana IT u bartay ama koorsadii uu qaatay uu dhameeyey haddii wixii uu barto marka oona qofkii reference lahayn hadduuna experience hore uu soo shaqeeye lahayn haddii oona lahayn khibrad oo ka turjumayso maxaa yeelay markii qofka example aniga haddii maanta aan aniga koorsadii kaa qaato oo barto ama qof kale oo barto shaqada ugu horreysa abalgareeyo waxaa la weydiinaya CV-gaygana waa inay ku xusan tahay ama ay ku qoran tahay haddii aan hore usoo shaqeeyey khibradda aan leeyahay waxa aan qaban karo iyo referenceyaal iyo wax lamid ah marka taas lafteeda marka waxbarashada markii koorsooyinka kasoo tago ma ka dhistaan dhalinyarada inaad shaqadii la raadisaan inaad referenceyaasha la diyaarisaan inaad ku xirtaan ama idinka laftiina meelaha kasoo shaqaysaan aad dadkii dhahdeen dhalinyaradan marka si qofkii uu fududaato inuu shaqadii helo maxaa yeelay haddii kale qofkii haddii intuu wax barto oo gurigii iskala tago oo ka niyad jabaa koorsadii waxaa laga yaabaa inaanu sii wadin ama waxbarashadii oo markaas haddana kasii caajiso laakiin haddii oo qofkii jaaniska u helo asagoo wixii baranaya haddana inuu helo macluumaadkii hadhow looga baahnaa lahay shaqada meeluu ka heli karo marka arrimahaas aad maaragtay koorsooyin badan iskuulo badanaa jiraan marka iskuulkeena muxuu uga duwan yahay kaas maasha allah su-aal runtii aad fiican waay waxaan mar walba macnaha isku daynaa ardayga macnaha meesha wax baranaya inaan aan fursad aan la raadina shaqooyinka shaqo in la helo runtii markaas waxaa ka muhiimsan oo aan markaas kula talin walaalaha kala in la raadiyo shaqooyinka volunteerka ah waxyaabaha waddankan qofka horumarku gaari karaa maxay tahay in horta fursad uu helo oo khibrad shaqo ah waxay dhahaan work experience ama volunteer jobs macnaha muddo badana macnaha aan alxamdulilah ilaahay isu teglan jiray in arday badan oo ardayda kamid ah inaan uu kaxeeyo oo aan hay-ado badan aan xiriir fiican leenahay say u helaan khibrad ay ku shaqaystaan isu kalsoonaadaan berri saas kaleeta laakiin runtii maadaama aniga aan ahay macallin wixii ku shaqeeya ma aha wax aniga keliya taas waxay ii saamaxaysaa in baahida suuqa aan ogahay shaqaalaha mataqaanaa macnaha skills looga maxay tahay marka qofka uu shaqo uu raadinayo intaba marka macnaha oo la weydiinayo su-aalaha waxaa aad loo weydiinaya su-aalo ku saabsan xirfadaha iyo shaqada loo baahan yahay mar hadduu ka jawaabo fursadiis aad u fududaan kartaa maasha allah waa ku maasantaa macallin wax badan kale waan ka caawinaa oo ardayda markay noo yimaadaan oo aad u fara badan oo iskuulka u dhinacooda taagan yahay oo markay yimaadaan ay si fiican isu ogaan doonaan insha allah waan rajaynaynaa dhalinyarada kulli IT-ga iyo waxbarashada aad u rajaynayaan ama kuwii maaragtay waxbarashada ku feelgaroobay ama dadka waaweyn oo waddankan yimid ee dhalinyarada ah oo ayaga laftooda iskuul waddankan aan ku aadin ama college aan ku aadin weli waxay fursad u leeyihiin inay multi training center inay macadkan yimaadaan wax ka bartaan kadibna ay si sharaf leh u shaqaystaan ayagoo adduunyada meel walba ka joogaan macallin marka anagu su-aalaheennii gabagabada sii marayno waxaan rabaa inaan su-aal ku weydiiyo dadku waxay isweydiinayaan adiga macallin aad tahay macahadkan weyn ardaydaas online ha noqoto galaas ha noqoto aan ognahay intaas dada yimaadaan marka xirfadaada markii waxbarashada ardayda waxbaraysa laga soo tago macallin ahaan nin waxaan dadka aad barta adiga ma ku shaqaysaa oo qof ku shaqeeyo oo maaragtay xirfadeedii leh oo saa uu aqoonta u leedahay haddana kambaryaal ugu shaqeeyo kalamaa tahay mase bayskaada ugu weyn waxbarashada inaad dadka dhista kaliya oo waxbartid aa ugu weyn taas
runtii su'aal aad iyo aad u muhiim ah walaalkii Nuurdiin sababtoo ah horta adduunyada waxa isbedelay quraan kariim kaliya waxa aan isbedelaynin ya iyo axaadiis nabiga calayhi salaatu wasalaam marka laga hadlayo cilmiga ama tiknoolajiyada maanta aan ku dhex jirno oo wax maalin kasta isbedel oo ku yimaado aniga cabdullaahi ahaan waxaan ku shaqeeyaa maalin kastaan ku shaqeeyaa hay-adaan u shaqeeyaa mataqaanaa arday badan aan wax baray oo asla shaqeynaa jirto maalin kastana joogno meesha aan ka shaqeeyo fursad oo hele qaarkood maamulo ah manager ah jiraan marka taasa waxay ii saamaxaysaa in macnaha teknolojiyada ugu dambeysa mar walbo hadday noqon lahayd macnaha software divine one oo kaleeta ah dna centerka catalyst centerka teknolojiyada waxa ay noqotaba ugu dambeysa markas waa dareemi kartaa wadamada ammaanta ku noolnahay hay-adaha markastoo macnaha waa inay soo iibsadaan qalabka ugu dambeeyo marka hay-ada u waaweyn waddankaa kamid aan ka shaqeeyaa oo fursado ii siiyaan tababaro joogta ah sanadkii tababaro badan aniga aan adaa kulanka ugu dambeeyay hadda waxaan kaga soo qayb qaatay November macnaha Barcelona waxaan ka qayb qaatay VMware World mataqaana ay isku imaadeen intaasoo kun oo qofood macnaha oo laga hadlayo directionka u socda VMware iyo shirkadda cusub ee iibsatay Broadcom ay ahayd iyo meelaha loo socdo marka fursadda macnaha organizationka u shaqeynaya hadday jiri lahayn macnaha waxay ahaan lahayd qof macnaha dadka wax barayo wixii hore aan bari lahaa laakiin wax cusub lama socon karaysa marka maadaama wixii aan maalin kasta ku dhex jiro oo maalin walba shaqadii aan qabanayo qof oo hands on skills aan ahay taas waxay ii saamixaysaa markuu ardayga galaaska imaado ma ahan kali inaan u sharaxi karaayo maadaama igu imaado noo sharax laakiin inaan kaga sheekeyn karaayo meesha adduunyada u socoto waxyaabaha oo latest technology ay tahay qaabka loogu shaqeynayo iyo kuwa markay weli shaqo helaan xataa inay isoo wici karaan oo ciladaha dhaco aan kala sheekeysan karaayo oo isku day karin inaan ciladaha kala hadlin xataa aad iyo aad macallin cabdullaahi aad iyo aad umahadsan tahay waxbarashada iyo dhalinyarada iyo ummadda soomaaliyeed meel walbay dunida ka joogaan sida mataqaanaa qalbigooda iyo maskaxdooda u dhisto su-aalaheennii annagoo sii gudagelayna insha allah waxaan rabnaa inaan su-aasha kale ee dadka isweydiiyaan oo muhiimka waxa waaye qofka markuu i t-ga barto micnaha waxa laga yaabaa qofka inuu sanadkan koorso qaatay qofkii waa shaqaale raadisay waxbaa la diyaarisay shaqo u helay marka i t-ga dadka badanaa ma fahamsano ma wax isbedbedelo waa qofku wuxuu 5 sano ka hor bartay joogaysa miya oo qofkii taas oo ku shaqaysanayo mase wax isbedbedelo oo koorsooyinka qofku mar walba u baahan yahay inuu wax cusub oo noloshiisa iyo waxbarashadiisaas mataqaana ay upgrade ahaato bal koorsooyinka IT-ga meeshaas wax yar noo iftiimi walaalkii waa su-aal runtii aad muhiim u waayo isbedelka IT-ga markas ku imaanayo ayaa dad badan waxay aaminsan yihiin in aan la jaan qaadi karayn dad badan waxaa arkaysaa oo jaamacada ka baxeen dhalinyaro ah maaragtay hadda waxaan rabaa inaan ku darorta ardayda macnaha kaliya ma aha GCSE-ga ama A level kaliya ma ahani arday xataa jaamacada ka baxeen oo degree haystaan oo hataa master ka haystaan IT-ga ayaa iskuulkii maadaama wax ku bartaan say shaqo u helaan marka qofku jaamacadda dhiganayo wuxuu soo barta academic kaliya ma ahani ma uusan soo baran professional oo shaqo ku heli karaa marka tan aan usoo noqdo su-aashaada ahayd macnaha isbedelka IT-ga maalin kasta ku imaanayo waa fursad aad u fiican una ah dadka raba in IT kusoo biraan anigoo laga yaabo inaan IT ku shaqeynayo 27 sano in ka badan haddana markii qofka maanta uu IT uu barto uu bilaabo fursadaha macnaha waxa uu bartay ku xirnaan doontaa ma u malaynayo inay noqonayso macnaha wax disadvantage ku ama khasaaro ku ah waxa cusub oo qofka la baranaya mustaqbal fiican uu gaari karaa runtii marka IT laga hadlayo isbedelka badan ee markas ku imaanaya teknolojiyada waxa ay sahashaa dad badan inay fursad u helaan aqoonta cusub ay bartaan ay horumar fiican si dhakhsaga gaaraan waayo waxaabihii hore oo 30 sano ka hor ahaa qofka inuu xafisan yahay muhiim maaha IT-ga markasta dadka inta badan aan la shaqeynayno ama maalin kasta arkayo qof kasta wuxuu isku daya inuu barto waxa ugu dambeeyo oo cusub oo intaas exactly marka waxa yar qofka uu barto uu macnaha kuna dadaalo ayaa ka fursad fiican qofka inuu wax badan yaqaan marka wax kasta cusub isbedelka IT ku imaanayo waa fursad aad iyo aad u fiican oo qofka IT inuu barto rabo wax badan ka taraysa ma aha mid dib u dhigaysa marka wax qortan dhalinyarada Soomaalida ah inay ka gudbaan inay iskala dhiciyaan in IT-ga yes tusaale ahaan hadda bishii la soo dhaafay October 14keeda macnaha Microsoft waxay soo sharci ah in Windows 10 ay joojinayso inay caawiso macnaha Windows 11 ay bilaaday inay caawiso marka shirkadaha oo boqolaalka kun oo computer haystaan ee mataqaana Windows 10 ku dubna waa inay ka gudbaan 10 ay u gudbaan 11 taa marka maxaa imaanayso application badan isticmaalayeen system badan isticmaalayeen oo loogu talagalay inuu isticmaalo Windows 10 ayaa waxa lagu tijaabinaa Windows 11 haddii ku shaqeyn waayaan la isku daya lagu noqonayo marka taa hadda maxay abuurtay boqolaal kun oo shaqo opportunity ah shirkadihii marka waxay rabaan injineero badan inay helaan oo ka caawiyaan waxay dhahaan in laga guuro 10ka oo loo guuro 11 marka waa arkaysaa mar kasta wax cusub ay soo baxaan waxay abuuraysaa fursad kaliya ma ahani waxba dib u dhac ma keenayso marka
dhalinyarada waxaan kula talin lahaa in ay taa ay macnaha ay u arkaan fursad fiican ayna ka qayb qaataan barashada IT-ga. thank you macalin cabdullaahi aad iyo aad ay mahadsan tahay waxaan leenahay shaqada adag ee mujtamaca soomaaliyeed aa u haysid ilaahay ajri khayr ka siiyo waxaan rabnaa weli barnaamijka markii aniga IT-ga waan jecelahay waxyaabahaas maxaa yeelay mar walbo aad dhex geshid wax baad kasii faa'iidaysaa marka su-aalaha kaloo hadda isweydiinta badan waxay tahay barnaamijka hadda caalamka haysto ee dadkii ay la dhaceen ee la yidhahda AI ama artificial intelligence ahaan barnaamijkaas bal horta waxaan haysiisaa tafaasiil dadka qaarna waa fahamsan yihiin dadka qaarna waa ku wareersan yihiin marka tafaasiil yar naga sii waxyaabaha advantage uu leeyahay oo wanaag ah asaga muxuu u taagan yahay oo mustaqbalkiisii mataqaan muxuu u taagan yahay ku fadhiyaa ma disadvantage miya ma faa'iido badan oo mujtamac u leeyahay maadaama hadda aan aragno wax walba hadda AI ayna noqdeen marka barnaamijka AI-ga bal wax yar noo taataabo oo noo dul istaag si dhalinyarada iyo mujtamac barnaamijka wanaag star media fiirsan doono ay macadka multi training center ugu faa'iidaystaan runtii waxaan rabaa inaan kusoo koobo ayadoo wax badan laga hadlayn macnaa ereygaas mataqaana oo aad macnaha oo aad loo isticmaalay maalmahan dambe ah wax macno weyn uu leeyahay markaa fiiriso waa waxa uu qaabilsan yahay wixii laga soo gudbay marka AI maqasho ma aha mustaqbal ma aha wuxuu ka hadli karaa kaliya uu kuu soo sharxi karaa data xog uu hayo oo hore ugu jirtay ayuu macnaha inuu aruuriyo xogtii hore loo aruuriyo oo manipulation uu ku sameeyo kaliya uu jawaab kaa siin karaa laakiin waxa soo socdo ma sheegi karaa prediction ma lahan marka dhowr nooc asiga xataa leeyahay machine learning hadduu ahaan lahaa natural language processing tusaale ahaan inaa email qoro oo kaleeto ah oo macnaha kaa saxo grammatical kaleeto ah luqadda waddankaa joogto oo kaleeto ay macnaha la fahamsiiyo oo emailka uu fiiriyo structurekeedii macnaha punctuationka iyo wax walba uu fiiriyo oo grammatical kaa saxo waxba noocaas kaleeto ah waa qayb ka mid a macnaha oo laha natural language processing kaleeto ah neural network suu leeyahay oo laakiin shaqo badanaa macnaha la geliya macnaha wax iska fudud ma aha in wax badan la baro waxaan time badan la geliyo in macnaha tusaale ahaan data xagga laga geliyo dhinac kale ay ka soo baxdo dadaa waxay ku bixiyaan thousands hours ah in hal shay kaliya ay baraan